maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada xafiiska xeerlaaliha guud si waafaqsan qodobka 231 faqradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada qareennada eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 231 faqradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in 30 kamid ah eedeysanayaasha ay soo qorteen codsi rafcaan qaadasho 22kii bishii 6aad 2023 taliyaha xabsiga dhexana uu soo gudbiyay isla taariikhdaas maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayana ay qabatay rafcaan qaadashada 27 bishii 6aad 2023 si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanayaashuna ku xuseen rafcaan qaadashadooda asbaabta rafcaan qaadashada si waafaqsan qodobka 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in xafiiska xeerlaaliha guud soo qortay warqad ku taariikhaysan 3 bishii 7aad 2023 ujeedadeeduna ahayd rafcaan qaadasho waafaqsan qodobka 210 warqadaas oo lagu xusay asbaabta rafcaan qaadashada si waafaqsan qodobada 213 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda gobolkana qabatay 4 bishii 7aad 2023 si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu iyadoo ka duuleysa arrimahaasi waxay go'aamisay arrimaha soo socda waxay go'aamisay in asbaabta rafcaan qaadashada eedeysanayaasha lagu soo qaatay xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada 213 216 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna aqbashay asbaabta rafcaan qaadashada qaab ahaan ama shakli ahaan maxkamaddu waxay go'aamisay in rafcaanka iyo asbaabta rafcaan qaadashada uu soo gudbiyay xafiiska xeerlaaliha guud lagu soo gudbiyay xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada 213 216 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ayna aqbashay asbaabta rafcaan qaadashada xafiiska xeerlaaliha guud qaab ahaan ama shakli ahaan waxay kale maxkamaddu go'aamisay in iyadoo la cuskanaya qodobka 231 faqradiisa labaad xarafka ee oo sheegaya in qayb ahaan ama guud ahaanba maxkamaddu soo celin karto dhageysigii maxkamadda darajada koowaad waxay maxkamaddu go'aamisay in qareennada eedeysanayaasha ay soo gudbiyaan caddaymaha maxkamadda gobolka ay sheegeen in aanay qiimeynin labo waxay go'aamisay in xafiiska xeerlaaliyaha guud soo gudbiyo caddaymaha muujinaya in 2 jeer doomaha ay soo galeen aagga gaarka ah ee kalluumaysiga aagga gaarka ah ee xadidan iyo aagga gaarka ah ee dhaqaalaha